waa muuqaal ka mid ah muuqaalada aan uga hadli jirnay dalalka caalamka. Kusoo dhawaada daawadayaal. Dalka maanta aan ka hadli doono waa dalka Faransiiska ee dhaca qaaradda Yurub. Kusoo dhawaada daawadayaal, muuqaal aad u xiiso badan. Caasimadda dalkan waa magaalada Paris, waana magaalada ugu weyn uguna dadka badan dalkan. Ku dhawaad 40 milyan oo qof ayaa booqata magaaladan sanadkiiba. Tirada shacabka ku nool dalkan waa 67 milyan oo qof. Luqadda lagu hadlana waa luqadda French. Lacagta laga isticmaalana waa lacagta Euro, taasoo laga isticmaalo guud ahaan wadamada ku jira Midowga Yurub. Badka guud ee dalkan waa 551,695 kiiloomitir isku wareeg. Dalkan wuxuu xuduud la leeyahay dalalka kala ah Belgium, Luxembourg, Germany, Switzerland, Italy, Monaco, Spain iyo Andorra. Dalkan sidoo kale wuxuu xuduud la leeyahay dalka Ingiriiska. Sidoo kale dalkan wuxuu xuduud la leeyahay Mediterranean Sea iyo badda Atlantic Ocean loo yaqaan. Waa dalka labaad ee ugu dhaqaalaha badan Midowga Yurub iyo kan toddobaad ee ugu dhaqaalaha badan dunida. Dalkan dhaqaalihiisu wuxuu ku tiirsan yahay dalxiiska oo ku dhawaad 100 milyan oo qof ah booqata dalkan sanadkiiba. Waa dalka ugu badan ee dalxiisayaasha dunida ay aadaan. Sidoo kale dalkan wuxuu dhaqaalihiisa si weyn ugu tiirsan yahay soo saaridda kiimikooyinka iyo warshadaha. Muuqaalkeena maanta intaas ayuu noo egyahay. Fadlan channelka haddii aad ku cusub tahay subscribe noo saar, muuqaalkan like garay si ay u gaaraan walaalo fara badan oo jecel inay ogaadaan xaqiiqooyinka ku saabsan dalalka caalamka.